بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سورة الرحمن آية وإذا شقت السماء فكان وردة كالدهان، يعني مركة أي اطلاع السماء أو مركز لبا شيء لا يشبه من نوع الاسمية مثل حاول يحل الجلود إلى فكان حياة وردة أوعى وجودا أو حياة حقة الجلاعة حياة كالدهان سيد السريد سوى القراشن أو مدرسون تأسيه ولا نغاها مثل الصماري أبقين ساسي أبسلعدون تمامها معنا ساسوي مركي الله سبحانه وتعالى وكوار من تلك النار دلائل القصن دونتا بعض الصورة قيثم تنبيه وحالو صفر لغاية ذلك بجنة سورة الواقعة وحان صور مهري إن ذلك صدح قرآن نقوم دونا أما صدح قيوة قيب إلهي وكنت المعامي أصحاب اليمين وأعطتك كتاب مديك ويسيني قيب إلهي وكم العابي السابقين ومقربين لولا قيبوا أهل الجنة قيب صدحات وأصحاب الشمال والمعاوي وأعطتك أهل النار وهيان وأنكسر هذا الليل سورة المكة سورة يعني إيمانك هيرت أوليه أو أحيانا صدح حياة أم صدح درجة أوليه وصفية إيمان الطوطوك الإيمان المجمل أو إنه قفته كل واقع كلمة التوحيد وعطيستبن الدين في حياة الله لكن إيمان كيسو وتوشرع سيئة ترد عليها أيضاً كل حين إنه واجبات الذين هذا حياة حرام تنقفوا هذا قفكاس إيمانك ضعيف كان وهيستوك محرمات وكعي واجبات وضيعي يعني لو مشيرين ذاتك ما أنت قيامه يعني الجلاليين لو مشيرين ومعنا خويا يعني ذاتك كتاب الذين الأسئلة يكبر هانيا لكن نور بحياة الإيمان يسيبوا جوا ضعيف لماذا؟ مرجع عقاب وطريق واجبات بدعي محرمات أيها الغسال أو تنزل الجديد نقوى المعين هيك الرغبات وحاول إيمانك واجبك أو إن قفوا إيمانك سيتوح ويستوح وكل قاتل وكل بحيه إيمانك وعلى وجه الواجب ينكسرها وعلى وجه الحرام ويدين تشاتنا في بنانك يستهاب إيمانك أسحوك قفل كل قاتل يحيى إيمانك واجب معنويا ومثل الطفل اللي يبدو لينا لواجبته ومعناها سيد الإيمان واجب وإيمان لها وإيمان فرقها القراءة الشرقية قفنا تلك النوع عاصة إيمانك واجب كليل المحامل كو إليها يتوقع أمانه أمام المذنين ومرة قرآن قلت المؤمنين وأمانه دائما تكسر الوجهة يكون كاسر غير الله تدوك أنت اللي تجوله قرقار يهيب وعلى سينيان ما قلت صدح آخره حيث طلقات إن الجنة قريان
iyadoo aanay nahay taaban saddexda arrimood darajada ka sarraysa oo iimaanka kaamilka ah ya oo waxaa weeyaan qofka iimaankiisu intuu xoogeystay waajibaadkii la yimid waxyaalihii xaaraamtaa ka fogaaday iska dhaaf intaas waxyaalihii maxaan qahdaayay manduubka ah yani waxaa jira shay lagaa doonayo ya lagu leeyahay samee haddaad samaysa sawaab aad leedahay haddaad ka gaabisoo samaynina lagu ciqaabi maayo waxaa lahaa manduubaad waa arrimo yani aada loo adkeeyay in lala yimaado marka qofkaan iimaanka kaamilkale waajibaadka ka soo wada baxaya haddana waxyaalihii dheeraadka ahaa ee khayraadka wanaagku samaynaya dhinaca kale waxyaalihii xaaraamta ahaa waa ka fogaanaya iimaankiisu u xoog badanaya ya shay ma la yidhi shaygaa diinta weerarka waa xaaraanha u dhowaan maayo lo-abta agtiisa lagu arki maayo taas iska dhaafe waxyaalaha karaahiyada yahdo oo ah yacni ashyaa ama arrimo laleeyahay waa arrintaa ma fiicna ya in la sameeyo ma habboona qofkii sameeya la ciqaabi maayo hadduu ilaahay dartii uga tagana ajri israab u leeyahay waxyaalahaas o dhan hataa waa ka fogaanaya xaaraamtii ma aha xataa wixii liila waxaas ma fiicna ya qof yani marka tilmaamayo yani muru'aad ama dadnimadu weydiinaysa suuq dhexdiisa qofka inuu wax ku cuno waddooyinka soo ka maray cadde ya way banaan tahay laakiin waa dad qurux badan yihin macana waxyaalahaas dhan tulaynaaya saadaska marka waxaa weeyaan dadkaas saddexda arrimood ay dadka hore lahaayeen ba waleeyihiin laakiin way ka daraysa sameeyaan ya adduunka ammaan bay ku leeyihiin ilaahay wuxuu tilmaamay inay yihiin dad waa la jecel yahay adduunka intay joogaan markay cadowgooda gaala ishayaan waa loo gargaar ballanqaad haystaan aakhiro ballanqaad waxay haystaan iyadoo aan beledkooda naarta ama inay janno galayaan inay janno galayaan kuwa iimaanka daciifka ah leh ee iimaanka mudmarka ah yani iimaan waa la siiyey laakiin ya maadaama ay ka shaqayn waayeen siduu iimaankooda xoog u yeelan lahaa ya waxaa weeyaan ammaan mare kow midda labaad hadday cadowgooda isxelaan ya madaxa baa laga qawin dacfiga iimaanka dartii maxaa yeele dad mudan oo ehel waa in loo gargaaro ma aha aakhirana marka la tago ma haystaan ballanqaada inaan la cadaabaynin nin walba intuu dembe waajibaadka yani intuu muxaramaad ku dhaqaaqayn ya baa kullatii loogu dhegan yahay hadduu doono ilaahay waa cafin laakiin ballanqaad ma haystaan inaysan naargelin marka saddexdaas heer ayaa markaa suurto idaa waqacadka waa ka hadlayay bilowgeeda oo la tilmaamay maxaan ku hadlay saabiqiintii asxaabu yamiinka asxaabu shimaalka halkan saddexda qodob maa la sheegaya abaarkooda kuwa asxaabu shimaalka waa kuwaas laga soo sheekeeyey naarta siday u geli doonaan oo maxaan ku hadlay balaayada la marin doono asxaabu yamiinkii iyo maxaan ku hadlay saabiqiintii ayaa halkan abaarkooda laga waramaya marka qof walba sidaas yaqaano meesha arrintiisu joogto ya iimaankiisu meeshuu joogo makii mudmarka ahaada makii waajibka ahaada makii kaamilka ahaada nin walba wadaas yaqaana laakiin waa lagu cadeeyey ya yani xaqaa'iqaas diintu way cadaysay alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waliman qof waxaa u sugnaatay khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigiisa oo istaagiisa ya qofkaas waxaa u sugnaatay jannataani laba janno leeyahay oo yani cabsida halkan marka la fiiriyo waxaa laga hadlayaa
يعني تذكي السابقين تاعها مقربين إليكم والسابقون السابقون أولئك المقربون ذكر إيمانكم ذلكم هيك تشوفوا ولكن إليه أوان هاي نوشا أنت تحسوا علام يا وحي درسين الأوجين أو يقيسين إن إلهي يرتقي يقين مركزا وح الله بكو إيمانيا وصار يسأل هذا أنت صاميسو بريء وإلهي وكاله استعطني وكويدين دونا يا محل بجواري الله يلها أنت إلهي ما أقوله كتشوف وكيستعجل يعني ما قلت أنت إلهي كادونا هي كل دقة حتى كل دقة ويد بريء الحساب بعض ما تقول حسابهم هي مركز دائما وعامل كاستورتي سكان موقتة يا يسلو إلى هرتاجن يا أو أهله لقيتونه وقول حسابهم محايل رسول الله الأحكام نور